nahay waan is urursanay group baan nahay urur baan noo diyaarsan aan istiisiisa ku hawl jirnaa iska dhisan caqabado yar walow kaan haba jiraan adigu naga hor imaade laakiin haasa yeeshay dad isku xiran wada tashado oo ma garanaysa in dadku wax ku soo kordhiyaan xaqoodan soo dhacsadaan ayaanu nahay caqabado iyagoo ay jiraan naga hor imanay fara badan waa gartay maxamed marka waxa igu maqaalaa dhalinyaradaas maxaa ku raacday in mar loo waday iskuul in looga furo magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer iskuulka waxa maxaa ku raacday kulay aan malqay in aan markii hore la hagaajiyay oo marka wax kasta loo dhameeyay laakiin aan imika wali aan la furin markaas iskuulka maxaa ku raacday markii iskuulka markii la idin furayay ayaad marka dhalinyarada isku barateen Soomaa nacam adoo dhalinyarada isku baranay iskuulka markii la furay oo ahayd taariikhda 2016 awalkeedii ayaan isku baranay oo xilligii barasaafka ka magaalada ama gobolkan oran kara Maxamed Ibrahim Qabo runtii barasaaf aad iyo aad u wanaagsan ahaa gobolka intii ku reeyay arrimo badan qabtay bulshadana cid kasta u tagta qancin kara ahaa waxa ay daaranta kala hadli kara ahaa marka xilliga ayaan isbaranay barasaafka si fiican buu nolol shaqeeyay iskuulkii iyo dhalinyaro gobolka u dhalatay oo aan imka maciidada ka xulsi kara in taariikh la yiraahdo marka meel fiican la soo gaarsiiyay iskuulkii markuu sanadka aakhirkiisii iyadoo iskuulkii leeyahay uu dhan yahay oo wala furayaa insha Allah baskii iyo dhulkii iyo adigu wixii la wada hayo ayaa cid dadaalkeeda waxa kamid ah waxaan oran karaa wasaaradda baahiyaha gaarka Cabdishakuur iyo wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada iyo dhalinyaro gobolka ah iyo barasaafka gobolka ee xilliga markaa joogay ayaa si fiican uga dadaalay hadana adigu iskuulka meel fiican maraya barasaafkina waa la dalacsiyay gobolka laga bedelay markaa iskuulka halkii ay warkiisa naga damay insha Allah imkaan anagu dib soo abaabulnay oo aan tamacna inaan raacdayno imanka maayirka magaalada walla kulanay insha Allah ballan baan noogu maqan cid kale wax ka rajaynaynaa waxaan doonayaa inaan cid walba halkeeda ugu tagno ta xukuumadana waxaan ka codsan arrimaha noocaas ah wasaaradda waxbarashada kale ay si fiican wax uga qabato iskuulka ay maareyso xukuumadda hadda jirtay ee talada haysa uu hogaamiye Axmed Maxamed Silaayo waxaan wadanka wax badan ka qabtay hadii xagga wadooyinka tahay hadii xagga waxbarashada tahay hadii xagga magaranaysa ciidamada tahay haday xagga maamul dadajinta tahay xagga dhalinyarada in la shaqaalaysiyo tahay hadii xagga haweenka tahay laakiin waxa oran kana kaalinteeda way maqan tahay waxaynu kuma baraarugin insha Allah xaraji inta yar mudada uga hadhay inuu arrinkan kuna ku xasuusano 7 sano oo xilka hay anaga wali xaqiiqo ma arag insha Allah taana noo qabtan karajini madaxweynaha baaqaas oo dareeshay soo waxa ku weydiin lahaa waxaad barnaamijka dhexdiisa waxaad ii sheegtay ama markii ugu horeysay barnaamijka aan bilaabaynay aan ku weydiiyay in ay jiraan inama kale aad wada dhalateen oo iyaguna markaa indhaha afka marka iyagu wax ma bartaano ma yihiin maxaan ku raacday dad ku faraxsan in sidan ay tahay qadar Alle ma garanaysaa oo Ilaahay uu qorsheeyay oo markaas ma yihiin dad 100% wax barta kuna faraxsan noloshooda runtii sidaan ku sheegay waxa way jiraan marka qaar wax barta way leeyihiin oo ma garanaysa madaaris iyo masaajid haysto oo reer ku masruufto oo reer haysto waxaan ku dadka kale wax taro oo iyagu ma garanaysa ilkooda wax taro tintiisana ku filan iyo arrimihiisa qaar aan wax barana way jiraan aan wali u suurta galin oo waayo ma garanaysa waxaan oran karaa baadiye wali ku dambeeya insha Allah aan fursad waxbarasho wali iyo helin ay jiraan waagtay Maxamed waxa Hargeysa ka jira urur ay ku midoobeen dadka aragga naafada ka oo loo soo gaabiyo sabo marka dhalinyarada ka waran xiriir intee laag baad wada leedihiin garanaysayo marka midkiin dad isku xiran ama iska warhaya su'aal fiican weeye dhalinyarada Hargeysa aad baan wada xiriirnaa gudoomiyaha ku xigeenka oo xubnahooda tahay arrimaha step baan wada soconaa Hargeysa uu nagu tigay kulamaan kula qaatay halkan noogu imaadaan kulamaan ku qaadana marka aad baan isku xidhanaa urur adoonina imkaan Burco ka dhisno insha Allah wax yar adigu deesay ku sheegay caqabadaha hor taagan ma ahaane kaan aad baan ogala shaqeynaa dad isku xidhan ma inaan ururka Soomaaliland ka dhisno doonayna aan garanaysaa golada dhawada gaarsiino imanka midaan Burco kale iyo ceeriga ayaan ka wadnaa Hargeysa si fiican buu ka dhisan yahay iyo boorma hadda laga bilaabayo marka golada in waa maxay caqabadaha ay hor taagan in aad ururkan aad dhistaan ma dhinaca dhaqaalaha bal marka dhinaca iga waran
su'aal fiican weeye ururkaasi adigu si sheegtay ku dhawaaqista ayaa harsan taana waxa ka haysta caqabada iyo duruufo jira maxmed de waxa jira dadkeena noocan ah dad shaqeeyo uma badna dad hantina faraha ku haya uma badna asyeeshee maskaxdiiba ayaa man oran karaa waxa lagu dabir lahaa dhaqaaliba ku gaaban taasan doonayaan dadweynaha uga martinahay in ururka caqabadaha ugu waaweyn haysta maanta waata hadan wax ka yartaa caqabadaha waxa kamid ah midaan xafiiska ururka ku shiri lahaa oo kale maanta uu shir leeyahay gaarigiisa soo ururin lahaa oo kale caqabadaha noocaas oo kale kamid ah marka taasan dadweynaha aad uga codsan inay wax ka qabtaan deemgaransa wixii taa kale ka geysan haday xukuumadda tahay haday ganacsatada tahay iyo haday magaransa cid ka soo samaafala haday tahayba inay gacan weyn ka geystaan ayaad u diri lahayd maxaan ku raahdaa dadka tusaale ahaan dadka samafalayaasha markaa maxaad u diri lahayd baaq noocee ayaad doonaysaa inaad u dirto markaa dhinaca in layd kala shaqeeyo dhinaca markaa ururkiina inaad dhistaan baaqyada aan diri lahaa waxaa kamid ah horta waxaan u sheegaa dadka inay dadkan haddii maskaxdooda magaranaysa haddii dadkan lagu tabco inay waddankan wax kusoo kordhin lahaayeen nafahoodan anfici lahaayeen haddii matala waxbarasho oo kale la siiyo inay waddankan maanta shaqa la-aantu ka jirto ee laga sii yaacayo maskaxba ayuu u baahan yahay maanta waddanka waxa ugu badan u baahan yahay in maskax la geliyo oo wax soo saar iyo hal abuurnimo lala imaado marka waxaan oran hadii dadkan wax la bari lahaa maskaxdooda inay wax fiican ay soo saari lahayd oo dadkan kale wax la barayo midna aan deewaatano mar qofkii wax bartay jaamacad ka baxo haduu shaqo fiican oo xafiis waayo inuu tahriib ku keenaysa ama Yurub iska higsado marka dad wadankooda ku qanacsan hal abuurna keen lahaay maanta shaqada waxa weeye hal abuurnimada inaga maqan shaqaduna hadii wadamada horumarna waxaan oran karaa waxyaalaha ay ku horumareen waxa ka ah wadankooda ay ku qanceen kadib waxa barteen ku celiyeen iyaga hal abuur leeyihiin oo wadankii wax soo saaraday tahay ma garanaysaa in la warshadeeyay haday beeri la soo saartay haday waxyaalo badan hal abuur oo wadanku uu leeyahay marka wadankeena wadan barwaaqad ku aasan tahay wadiin yahay haday badi tahay haday macdanti tahay haday waxyaalo kale hal abuurnimo tahay cidii soo saar lahayd ee maskaxdeeda maalahayd u baahan yahay marka dadka bal badan baa lagu tabcayo tahriibuna bateen waxa jeclaan lahaa in maanta bal dadka maskaxdooda la tijaabiyo waxbarasho la sii tutaalna waxa uu noqon karaa in midaan ururka Hargeysa kale waxa ka filan iskuul ayro kala ah iskuulka dhalinyarada wax ka baratay wixii ka bartay ma kara mid qura bila amal ama jiro qaar isaga dib iskuulka macallimiin uga noqday midaan mid alla sheegay saxiix sheegay kale macallimiintii ardayda wax u dhigo in isaga aad u jecel macallinta kale wax aragta waayo duruuftooda la fahmaya iyaga isaga aad u jecel yihiin qaar ila cad ka shaqeeya Hargeysa oo kale qaar xafiis kale TV badan ka shaqeeya ayaa jiro intii ka soo baxeen halka iyagoo waliba ka bixin foofor jaamacad iska daay marka waxa loo raadiyay waxbarasho loo sameyn lahaa meel fiican ay ka gaari lahaayeen ma garanaysaa taa wax in dadweynuhu soo jeestaan rajaynaya ay xukuumaddu u furto gobolka Togdheer iskuulka waxbarashada way maadaama ay dhagolayaashii leeyihiin in anaguna xaqiiqi helno nolol fur anagina aan dadaalin mar ku gacan qaabto iskuulka si dhaqso mar ku furo maadaama meel fiican ay soo gaadho qalabkiisii wixiisiiba lahaayay in si dhaqso xukuumaddu ugu furto ayaan ka rajaynaya dadka samafalayaasha tan ururka soo noqdo ururku waa kaasoo isku tashaday caqabad haysta waxa weeye caqabadaha dhaqaalaha dadka muxsiniinta iyo ganacsada gobolka iyo kuwa Soomaaliland iyo dadka kale dhageysanaya barnaamijka ee daafaha caalamka ka daawanaya inay wixii taakula iyo ray iyo adduunba ay ku soo kaalmeeyaan ururka xukuumaduna garab qabato oo dhaqaalaha ugu weyn ee dadka muxsiniinta kuleba inta meel bax lagu bixinayaa iyaguna aakhirada ku horumarsadeen insha Allah inuu ku soo taageero aad iyo adigu adkeynaytaan Kristiina ka codsanay waa tahay maxamed si fiican baad uga jawaabtay su'aasha waxa laga yaabaa marka dadka daawadayaasha ee barnaamijkan daawanaya ama dadka doonaya maxaan ku raahdaa inay ururkan wax ku darsadaan ma garanaysaa sidii ay u gacan qaban lahaayeen maxaan ku raahdaa idin ka caawin lahaayeen xaflad inaad qabsataan oo aad marka ururkii ku dhawaaqdaan maadaama qaybtii burcaydan kaga dhawaaqin laakiin ururkii uu yahay mid Soomaaliland ka dhisan oo maxaan ku raahdaa marka xaruntiisa ugu weyn ay Hargeysa tahay burcana aad doonaysaan aad ka waxa laga yaabaa dad badan oo muxsiniin in ay isweydiin lahaayeen ama isweydiinayaan talo xagee laga soo xiriiri karaa ama xagee wax lagu soo hagaajin karaa marka ma sheegi kartaa number wax la idinku soo hagaajin karo cidii marka danaynaysa ee rabta inay marka ka qayb qaadato arimaha samafalka number ay marka cidii wax idinku soo diri kartaa idinku soo hagaajiso sheegi kartaa naam su'aal wanaagsan weeye maxamed su'aalaad fiican weeye
akoon buu lambarku ururku leeyahay wax lagu soo diray cidii wax ku taraysa akoonkaasana shaashada lambarka ka muuqan doona weeye waan u yeerin doonaa insha Allah hay way nambarkii yeeri haweeye 33 69 17 96 ku cali 369 17 96 marka nambarka saas ku saxiix halkaas ku saxan yahay waa 369 17 96 Maxamed Cabdi Axmed noo soo bixi doona waana akoonka ururka kaarkaasana cidii wax ku taraysa magaranaysa samafala ah ay ugu soo hagaajinayso ururka kala soo xiriir kara ururkan aad doonaysaan markaa in aad samaysaan magaalada Burco maxaan ku raahdaa aad markaa rabtaan inaad kaga dhawaaqdaan oo ururkuna markaas uu aad ku midaysan tihiin dhalinyarada Soomaaliland ee aragga naafada ka ururkuna uu ka jiro magaalada Hargeysa aad markaa doonaysaan magaalada Burco inaad qaybtiisa labaad aad kaga dhawaaqdaan gobolada oo dhan la gaarsiiyo ururkan markaa gudoomiye ku xigeen baa laga inaad samaysteen markaa gudoomiye ka ururka su'aal fiican weeye ururku uu dhisan yahay laakiin waxa ka yar maqan bulshadii ma loo soo bandhigin wali sharac baa laga dhawaaqin laakiin uu dhisan yahay taana caqabadaha ka raystay insha Allah hadii si degdeg ugu dhawaaqno gudoomiyaha ururku waaniga gudoomiye ku xigeenkiisuna waxa weeye waa isaguna wali hadir uu naga yar maqan yahay laakiin uu leeyahay gudoomiye ku xigeen xog xayeen iyo inta uu leeyahay waa tahay Maxamed ya jeclaan lahayd inaad halkan ka salaanto ama aad markaa halkan aad uga hambaleyso fursadan adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay telefishinka fursadan uu ku siiyay telefishinka caalamiga ah Bulsho TV waxaan aad ugu mahad celinayaa telefishinka isaga guud ahaan aad ugu mahad celinayaa fursada wanaagsan ee uu na siiyay gaar ahaan waxaan aad ugu mahad celinayaa wariyaha ila jooga hadda Maxamed aadan aad kugu mahad celinayaa Maxamed Saciid Cali waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiyihii barasaafka hore ee gobolka oo hadda ka tagay laakiin aad gobolka wax fiican ugu qabtay ayaan halkiis ugu mahad celinaya insha Allah imkana inaan naga fogaan marjiini waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeennii wax ka baro waayaha nolosha oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay waraysi aan la yeeshay mid ka mid ah dhalinyarada aragga naafada ka ee ku nool magaalada Burco dhinaca kamarada iyo sawir qaadistuna waa Nuux Maxamed intaan barnaamijkan dhigiisa ku kulmi doono waa aniga Maxamed Saciid Cali oo idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo